waxaan soo gashay inaan la kulano ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed mudane ra'iisul wasaare ugu horreyn bal telefishinka qaranka xilkan lagu magacaabay sidoo aragtaa aad baan u faraxsanahay waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil sharaf weyn leh isla markaana mas'uuliyad culus ah marka anigu waxaan u arkaa hawl aad u fara badan isla markaana haddaanu gudanno sharaf iyo magac Soomaaliya aanu u keeni karo annagana runtii aan aad raalli uga noqonayo waxyaabaha aasaaska ah siyaasaddaada isleedahay waad ku guulaysan kartaa maxaa ka mid ah wallaahi walaal waxaan u arkaa hawsha aan ka akhriyay khudbaddayda inaan qabanno taasoo ay ugu horrayso inaan nabadayno dalka oo aan amnigii soo celinno isla markaana hay-aadka dawladda aynu dhisno dastuurkana qabyada aynu ka saaro oo markaa dastuur kumeel gaar ah weeyaan haddee dastuur rasmi ah uu noqdo kadibna inuu xagga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada inaynu xoogga saarno marka liiskaas aan khudbada ka akhriyay ayaa saldhig u ah isqabqabsiga xukuumadaha iyo madaxda sare ee dalka badanaa soo kala dhex gala xukuumaddaada ka waran ma ka fogaan doontaa runtii aad iyo aad baan arrintaas uga baaraan degay waxaan rajaynayaa inaynu dhici doonin intaasu taariikh laga soo tegay noqon doonto marka iskhilaaf dambe oo dawladda hay-aadkeeda sare iyo madaxda sare soo dhexgala inaysan noqon doonin wax Soomaalida ama dadkeena murug u keena marka waa wax laga soo tegay oo dhammaaday kan aad buu adag yahay waa xilka ra'iisul wasaarenimo weligaa ma ku fikirta mase isleedahay ahmiyad noocee ayuu isugu fadhiyaa isleedahay runaantii waa ku fakeray oo markii hore doorashadii horeba waan joogay xamar waxaan ka mid ahaa raggii u tartamayay muddo ayaan ku fakarayay runtii inaan contributionkayga waayo aragnimada aan leeyahay iyo wixii aan qaban karo taariikh ahaan si aan u xigayno mudane ra'iisul wasaare xilkan ka hor inteebaad ka soo shaqaysay maxaad ugu sheegi kartaa taariikhdaada dalka waan ka soo shaqeeyey oo waxaan dhisay hay-ad runtii dhaqaalaha lafdhabar u ahayd oo ah xoolo dhoofinta anaa hay-addaasaan dhisnay kadibna waxaan ka soo shaqeeyey mashaariic iyo barnaamijyo goboleed gaar ahaan gobolkeennan geeska Afrika dawladaha ama igad dawladaha ku jira kadibna waxaan ka shaqeeyey ururka COMESA oo aan ka noqday la taliye sare ururkaasoo 20 dawladood oo Afrikaan ay ku bohoobeen waxaan kaloo ka shaqeeyey bankiga islaamka oo 56 dawladood oo muslima ay ku bahan yihiin marka adigu meelahaas iyo hawlo kale waan qabtay